maalin maalmaha ka mid ah ayaa waxaa jiray laba saaxiib oo wanaagsan oo lagu kala magacaabo Ron iyo John kuwaasoo go'aansaday inay safraan ayna soo arkaan adduunka oo idil. Maalin ayaa waxa ay go'aansadeen inay aadaan ama ay tagaan duurka waxay ahayd mid khatar badan. Ron iyo John way ogaayeen in duurka aad u khatar badan tahay, sidaa awgeed waxa ay ku balameen midba midka kale inay midoobaan ama ay isgarab istaagaan xaalad walbo khatar oo soo wajahda. Isla markiiba waxa ay maqleen cod ama xayawaan aad u cabaadaya, waxayna arkeen oorso weyn oo ku soo socota, aadna ay ugu baqeen oo waa ay argagaxeen. Ron si dhaqso leh ayuu orday, isla markiiba waxa uu fuulay geed u dhawaa oo meesha ku yaalay. John waxa looga tagay geedka hoostiisa maxaa yeelay ma garanayn sida loo fuulo geedka. John ayaa weydiistay saaxiibkiisa Ron, wuxuuna yiri miga caabin kartaa fuulida geedkan, oorsada ayaa cunaysay haddaanan geedka fuulin ee fadlan ii caabi saaxiibkaygiyo. Ron ayaa ku dhahay saaxiibkiisa John, anigu hadda ma soo degi karo, oorso ayaa soo socoto, mana jirto meel sare aan halkan ka ahayn ee aan ku soo dhuunto. Bax oo raadso naftaada meel ay ku dhuumato. Ron muusan caabin saaxiibkiisa John, balse John waxa uu ahaa wiil aad caaqil u ah oo caqli badan. Iskuulka dhexdiisa waxa uu ku maqlay macalinka oo sheegaya in oorsadu aysan cunayn noole dhintay. Markaa ayuu soo xasuustay hadalka macalinkii, waxa uuna adeegsaday caqligiisa, wuxuuna isku tuuray dhulka isagoo siman oo aanan neefsanin, isagoo iska dhigaya nin dhintay. Oorsadii ayaa u timid ninkii oo dhulka jiifa, waxa ayna ursatay indhihiisa oo waxa ay u qaadatay qof dhintay. Si aayar ah ama si degan ayayna meesha isaga tagtay, maxaa yeelay oorsada ma taabtaan noolaha dhintay. Kadib markii ay oorsadu baxday ayaa waxaa ka soo degay geedka korkiisa Ron, wuxuuna weydiiyey saaxiibkiisa John, oorsadu maxay dhegta kugu sheegaysay? John ayaa yiri oorsadu waxay ugula talisay inaanan aamin saaxiibada beenaalayaasha ah sida adiga oo kale, kuwaasoo kaaga tagaya waqtiyada khatarta ah.